xidigtii Soomaaliland dayixii Soomaaliland u soo baxday ee cisiga iyo ictiraafkaba aynu ku sugaynay aawadii barkhad batuun jaamac xildhibaanka nin baa laga sheegay amba waan ordi lahaa awrdhaanaba wada barkhada amba waan ku codayn lahaa burcaan joogay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu anigoo ah Axmed Maxamed Nuur Abwaandhako iyo kooxdaydii xidigaha qaranka ee gobolka Togdheer halkan waxaanu maanta horta ilaaha ayaa mahad iskale alxamdulilaahi rabbil caalamiin wa bihi nasta'in ala amri dunya wa diin waxaan ilaaha u mahadnaqayaa ilaaha asoo wajalla ee doorashadii mugga iyo miisaanka lahayd ee saarayd nabadgelyada inoogu dhameeyay inoogu dhameystiray ilaa ku dhawaaqisteedii aan wax dhiba iyo wax shida ay ka dhicin deereena ku hordiyeen ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa qofka aan ummadda u mahadnaqin ilaahayna ma mahadnaqa baa la yiraahdaa waxa mahadda labaad aan u naqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo u bareeray doorashada mugga iyo miisaanka leh nabadgelyadeeda iyo waxaan ku yiri dhaqaalaheedaba aan isaga cid ugu imanin waxaan u mahadnaqayaa xusbiyada qaranka ee aan isjiidasho iyo saxagasho iyo cidiyatoona isu geysan dadkana aan turxaan dhex dhigin ee mid walba wixii Allah uga qoray uu ku qancay waxaan u mahadnaqayaa komishanka qaranka Cabdirashiid iyo gudoomiyahooda riya raacan uga cadaalad raac baaban oran lahaa la yiraahdee ayaan isna u mahadnaqayaa inta mahadnaqa marka kaga imaado waxaan hambalyeenayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland ee ku guuleysatay inay qabato doorasho aan Afrikada bari iyo Asia toona ka dhicin ku guuleysatay ilaahay ku guuleeyay waxa aan hambalyo u diraya musharaxiintii hadhay ee ku qanacday nasiibkoodii bariba doorasho talo qudamaha bariba way imanaysaa iyagana waan ku hambalyeynaya waxaan u hambalyeynayaa musharaxiinta soo baxday waxaan ilaahay ka baryayaa inay noqdaan qaaraan codkii aanu siinay iyaguna ku cadaab mudan annagana aan dambi nooga soo baydhin oo nalgu ciqaabin maxaa ugu codayseen markay khaladaad sameeyaan waxaan si gaara halkan maanta oo ujeedadayda ugu weyn ay ahayd u hambalyeynayaa haddaanu nahay bahda fanka gobolka Togdheerba waxaanu hambalyo u diraynaa siiba kooxdayda waxaanu hambalyo halkan uga diraynaa xildhibaanada u soo baxay bahda fanka xildhibaanimada ugu soo baxay golaha deegaan iyo baarlamaanba Abwaan Laab Saalax oo golaha baarlamaanka loogu soo baxay Abwaan Jaamac Boore Ibn Fan Dakariin Axmed Mooge maayarka Ibn Fanka intaba waan halkan aan uga hambalyeynaa waxaanu leenahay waa noo soo baxdeen waxna waa noo qaban doontaan aqoon badanna waa u leedihiin fanka iyo hawlihiisa ilaahay hawsha xilka ummadda u qaaday lahayd ku guuleeyo xidigtii Soomaaliland dayixii Soomaaliland u soo baxday ee cisiga iyo ictiraafkaba aynu ku sugaynay aawadii barkhad batuun jaamac xildhibaanka nin baa laga sheegay amba waan ordi lahaa awrdhaanaba wada barkhada amba waan ku codayn lahaa burcaan joogay waxaan ku leeyahay ilaahay xilka uu ku saaray ha kugu asturo durba wax qabadkaagi waanu aragnaa adoo curyaamadii ninkii ku siiyay durba wax qabadkaagi xildhibaanka ugu wax qabadka badan sharci isagoon magacaawnay ayuu wax qabadkiisa muuqday aad baan isagana u hambalyeynaya kooxdoo dhanna way hambalyeynaysaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh